هذا البدن مركوجه الرئيسة مدحضة هلك فردة هي تدوينها دمانتي وان سلامية سلام كدب هلك اسمه تاجن هالضينان وربضن دي شيء وحكى لي يعني ستاجي إن أنا دي شيء سببتي يقول كلفتي إنا بوجن قرب وجنير إنا قرب وحوي صدح الريموت أي موقتي مدي وحوي دقنك يا أفكو حوجي سو حكجرا بادية أو بادية حول دقتها بادية بيرليدا هي بادية كلوميس وحي موقتي dalkeenu inuu magaalo u soo socdo oo baadiyihii ama beer ha noqoto ama bad ha noqoto ama xoolo dhaqataa noqday in laga soo qulqulayo oo magaalo la imanayo af magaalo af qoomiyadeed ma aha af magaalo waa afaf kala duwan oo dhaqanka magaaladu uu abuuro oo af Soomaalina ku jiraayo lahjada kasta halaade marka waxaan ka baqayaa in ereygu wuxuu ka dhashaa dhaqanka leesh waxa la sameeynayo ayuu ereygu ka sameysmaa haddii marka xoolo dhaqashadii laga yimid haddii beerihii laga yimid haddii kalluumaysigii laga yimid waxaan filayaa hadda inteenan magaacda af Soomaaliga ee kalluunku leeyahay wax yaqaan aynuguma jiro haddii aynu dhaqaaqno aynu baadiyaha xoolo dhaqatada u tagno geedihii Soomaalidu dhirtii Soomaalidu ee magaacda lahayd cid taqaana halkan waa ku yari sababtu waxa weeye dhirtiina way dhamaatay dadkiina magaaluba soo galay kolka magaacdii dhirtu way tagaysaa qodobkaas weeye aanu arkay in haddii magaalo loo soo dhamaado yani dhaqankii naftiisu inuu dhaawacmaayo leesh dhaqanku waa shaqada dadku ay qabtaan erayaduna waxay ka abuurmaan shaqadaas iyada iyo waxyaalada la isticmaalo nooc kasta uu yahay ayuu ka dhashaa kolka eray bixintii ayaa halka gabaabs ku noqonaysa qodobka labaad ee ay ugu kalifay waxa weeye laba af oo qalaad ayaa si xoog leh dadkeen u qaatay oo waxaan arkaynaa af carabi iyo af ingiriis ayaa iskuulada laga dhigaa af Soomaaligii lama dhigo waliba waxaan ka xumahay heedaha dawladdu inay af ingiriis lagaga shaqeeyo lagu qoraayo waxa weeye kolka labada af iyo dhaqamada ay wataan waxay meesha ka saarayaan aakhirka haddii 50 sano oo dambe ay sidaa u socoto inay noqonayso yani af Soomaaligii inuu gabaabsi galaayo waxa kale ta saddexaad ee igu kaliftay ay tahay inagu waa qaxnay waxaynu adduunkaynu u qaxnay caruurteena yaryar ama xagga ku dhalatay ama la kaxeeyay la geeyay af Soomaaliga uu ka dhumaya marka waa inay helaan ha yaraato ha badnaatee inta waalidku la joogo hadda caruurtaas in ay helaan wax af Soomaaliga oo caruurta ay ku barbaariyaan oo ay u sheegaan waxa weeye dhaqankiina halkaas kolka ka baxaya haddii af Soomaaligu dhumo leesh af Soomaaligu waa tiir dhaxaadka dhaqanka weey
ليش والله كيديا أفكو كلكو قرية هديات قرطو واتكو كيدنيسا وحنا دوغا حماي وحن قبا قريس لآنتي أفكا سومالي كمامكم كسنة جري وحفر بدن أو ياشين سميين إنا إنك دومين قريس لآنتا إنا أمقيه وحا كالي وأن هذا الدرين سنة سوغان تينا يدقن كينا أبوانين الصوماليات أيام مسكحدو وي حفيدي جيرين وعجائب كلكا جيل بجيل بو قدبين جيرين جيل بجيل بو قدبين جيرين waxaan isleeyahay hadda dhalinyarada soo baxday hadda waxa weeye waa af magaalo iyo dhaqan magaalo ayay yaqaaniin oo aan qabo inuu yahay af qoomiyeed inuuna ahayn ee af magaalo oo af badan isu keenaya kolka abwaaninteeni iyo suugaanleydii kaydin jiray ee xafidi jiray way dhamaadeen waaba gabagabo hadda kolka waxaan qoraalkan yar aan isiri malaha haddii wuxuun la qoro buugaag badan baa la qoray oo ka baaxad weyn kan yareen qoray laakiin waxaan isiri ama yani waxyaalo yaryar oo dadka Soomaaliyeed aan yani akhriska sidii raggii iga horeeyay ay sheegeen inagu waxaynu iska nahay dadka hadalka laakiin akhrisku inaguma badna marka si aan ciriiri u ahayn oo si sahlan qofku uu dareemi karo ayaan buugan u qoray waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa dad fara badan oo kaalin ka geystay gaar ahaan akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta mahad gaara ayaan u celinayaa waxaan u soo jeedinayaa inay ururin ku sameeyaan oo la tago dhulka hadda wax laga helaya dhirteennii kala duwaneyd in la qoro magacadii la soo ururiyo dhaqankeennii wixii jiray wax badan baynaan inagu hadda aqoon in la soo ururiyo waqtigu waa kulay aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa guddigan iyo kasmo guddigan halka inoo hor fadhiya iyo kasmana mahad gaaraan u celinayaa waan filayaa edition kale oo hadda ku maqan iyaga oo soo saari doonaan oo ka ballaaran inay degdeg inoogu keeni doonaan aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa imaanshihiina dadkii hadlay mahad gaaraan u celinayaa dhammaantood waxaan si gaara prime ministerkii Soomaaliya ee hore Ali Maxamed Geed fikirkii uu soo jeediyay ee ah Soomaaliya inay yani jeebkeeda gacanta geliso oo ay ku tala gasho inay dhisato ma halkan oo kaliya ma theater museum library saddexduba halkaas iyagoo qalfafay taagan yihiin sidaa uu prime ministerkii hore soo jeediyay Soomaali ha isku tashato yaynaan wax ka sugin ajnabi aynu inagu keena waxaya waliba ganacsatada Soomaaliyeed waxaan soo jeedinayaa arinta saddexda meelood inaynu xoogeena saarno oo ganacsatada Soomaaliyeed ay kaalin muhiim ah qaadato inagana qofkii 100 helaya iyo kii 10 helaya iyo kii 20 helaya sida uu prime minister ku soo jeediyay aynu yeel aad iyo aad baad mahadsantii mudane dalxa aad buu mahadsanyahay waa lahjado afaf ma aha lahjada weeye
lahjadadeennana waxaynu u baahannahay qoraal af Soomaaliya oo cid kastaaba qorayso laakiin ku hadalku ha noqdo lahjadaha laakiin inaynu isku dayno afkeena inaynu qoraal rasmi ah oo qof waliba uu qorayo inaynu samaysano aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaan kadib akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta oo madaxdeedii fadhido waxaan uga mahad celinaynaa qoraaga buugga mudane cabdi xaashi cabdulaahi inuu akademiyada keeno in lagu daafuro buuggiisa arrintaasoo iila muuqata fariin ku socota ummadda Soomaaliyeed oo ayaan hoteelada lagu daafuro meeshii loogu talagalay aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa oo aan baryanaynaa akademiyadan taariikhdeeda jiilka da'da yar aad uma yaqaanaan laakiin hadday baranayaan waxay ahayd saldhigga dharanka iyo hidaha iyo taariikhda Soomaaliyeed dowladihii hore ma ahayn science ayaa ku jira ama cilmi ma ahayn hidda iyo dhaqan iyo taariikh kaliya culumta kala duwan qaybaheeda muhiimka ah oo dhan ayay cilmi baaris ku samayn jirtay waxaan xasuustaa ama macallin ah mashruuc xanaanada dhaqashada wax soo saarka geela oo dowladda Sweden maalgelin jirta ayaa halkan nooga socon jiray haddaan ahay bahda xanaanada xoolaha kulliyadaha jaamacadda ummadda midaan shaqo halka u oolin ma jiro waa u hambalyaynayaa madaxdeeda iyo shaqaalaheeda inay soo nooleeyaan oo maanta noogu yeeraan xaruntii aan horu naqaanay haddana aan rabno inay sideedii hore iyo si ka fiican ku noqoto mudane cabdi xaashi mar kale aan kaaga mahad celinaynaa buugga inaad halka keento waxaana rajaynaynaa qorayaasha kale ee kusoo biiri doona bahda qalinka inay halka keenaan buugtooda ee aanay hoteelo geyn iyo guri kale mudane cabdi xaashi waa ka duwan yahay dadka waa soo hogaamiyey hiddo iyo dhaqan Soomaaliyeed iyo taariikh afku ugu horeey anigu waxaan aqaanaa 40 sano in ka badan odagan waayeelka hada dadku hadda arkeen isagoo dhalinyaro naqaanay nagoo macallimiin jaamacadeeda oo ka soo shaqeeyay jaamacadda ummadda xilalka uu qaranka ka soo qabtay oo maanta ugu weyn yahay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya xilal badan oo kala duwan uu qaranka u soo qabtay meesha uu qabtana magac iyo sharaf iyo taariikh